بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع عاوة sidii horeba loo cilaamiyey oo noqon doona mafaasidul intikhabaat ama dhibaatooyinka ay leedahay doorashooyinkan markay tahay suurada mucaasirka ee hadda ay u jirto. insha allahu tacaala waxaan isku dayi doonaa inaynu waqti kooban ku soo ururino. waxaynu se ka horaysiinaynaa dhowr qodob oo aynu odhan karno waa idaa'aatun iftitaaxiya ama iftiimino hordhac midda ugu horeysa sida idiin muuqataa caawa mowduucu waa iska xaal weeye. mawaadiicdii muhiimka ahayd hadday tahay xukmiga ay leedahay doorashooyinkan hadda suurada mucaasirka u jira, iyo haddii ay tahay waajibaadka looga baahan yahay qofka muntakhabka ee la dooranayo ama murashaxa iyo aadaabta iyo waajibaadka looga baahan yahay qofka muntakhibka ee wax dooranaya. labaduba waa inuu soo hormareen. marka had iyo jeer shayga calaa طariiqati الfuqahaa, marka shayga xaqiiqadiisa laga warramo ee xukunkiisa laga warramo ee shuruuddiisa wax ka mida laga warramo, caadatan waxaa la dambaysiiyaa waxyaabaha manhiyaadka loo yaqaan, sida waxyaabaha mubdilaadka oo kale, soonka oo kale. marka xaqiiqadiisa la sheego ee xukunkiisa la sheego, shuruudda uu ku waajibo la sheego, shuruuddu ku asaxo la sheego. inta badan xagga dambe waxaa laga warramaa wixii ama makruuhaad ama mubdilaad ee burin lahaa. marka caawa mowduucu insha allahu tacaala si ay saddexda mowduuc isugu keen xidhmaan munaasabadaas ayuu leeyahay. midda labaad, mowduuca laftiisa oo mafaasidda iyo dhibaatooyinka ku sugan intikhabaadka ama doorashooyinka aad bay runtii u badan yihiin, laakiin waxaan isku dayayaa inaynu soo ururino. si ay noogu soo ururto waxaynu u qaybin karnaa mafaasidul intikhabaat saddex qaybood baynu u qaybin karnaa. qaybta ugu horeysa waxa weeyaan waa mafaasidun wahmiya laa xaqiiqata lahaa aslan. waa waxyaabo dhibaatooyinah oo midii laga hadlayey ama doorashooyinka nooca laga hadlayay ee nooca la bannaynayo marka loo eego aan ku jirin. hase ahaatee dadka qaarkood ay tiriyeenoo mafaasidda ay ku dareen. waxaa ka mid inay tahay ishraaku billaah, wax ilaahay tabaaraka wa tacaala xukunkiisii laga qaadiyo oo cid kale laga siinayo. mafsada noocaasi intikhabaadka ama doorashooyinka ay markaa ka dhacaysa dadka muslimiinta dhexdooda ama wadamadooda dawaabidda iyo quyuudda iyo shuruuddii lasoo sheegay leh, mafsadadaasi ku xaqiiqoobi mayso. waxaa ka mida mafaasidda iyaduna iska wahmiga ee wax xaqiiqo aan ku dhisnayn in la yidhaahdo
وحويان وديمقراطيات أما هدي لبنيو انتخاباتك ديمقراطيات بالبنيي تانا إيانا هوري أيا لينورسو شافيي إيادنا إن شاء الله تعالى مفسدة النوعاسي ما أهكوا أي نعاوة كهد دونه وحا كمده مفاسد الله شيغي لكن أن كنت دبق مينين مد أينو كهد لينه أما دورشوينك نوع أينو كهد لينا أن كنت دبق مينين إلا إلهه وحويان اتهام بالشريعة بأنها ناقصة وتهم لتهم أيوه شريعة الإسلام إنه تهي متكلا ديمان oo aan ku filayn masaalixda iyo danaha adoomaha aakhiri adduun haddii ay tahayba waxaas iyo kuwa badan oo culimada qaarkood ay sheegeen waynu iska dhaafaynaa waayo maxaa yeelay ku dabaqmi mayso midda aynu inagu insha allahu tacaala ka soo hadalnay habeen hore laga soo hadlay xaqiiqadeeda iyo xukunkeedaba xalayto laga warramay shuruudda looga baahan yahay qofka wax dooranaya iyo qofka la dooranayaba qaybtaa markaynu ka nimaadno qaybta labaad waxaynu odhan karnaa mafaasidda caawa aynu ka hadlaynaa laba qaybood ayuunbay ku urursan tahay si ijmaala haddaynu sheegnana mafaasidda aynu tirin doonaa dhammaan waxay soo gudagelaysaa marka laga tallaabsado shuruuddii loo dhigayay qofka wax dooranaya iyo qofka la dooranayo iyo sida wax loo dooranayo shuruudda iyo aadaabta culimmadu ay u dejiyeen wax ka midana muxaadaradii xalay ay ku saabsanayd marka arrintaa la dhaafee laga tallaabsado ayaa mafaasidda ama dhibaatooyinka soo socdaa ay imaan karaan ugu horreyn dhibaatooyinka aynu caawa ka warrami doonaa waxay noqon doonaan marka qaybta hore aynu ka nimaadno laba qaybood qaybta hore waa dhibaatooyin doorashada lafteeda ku lamaan oo ay iyadu wadato oo ay adag tahay marka qaabkan ay u jirto loo dabaqayo in laga fakado qaybta labaad ama dhibaatooyinka iyo mafaasidda qaybtooda labaad waxa weeyaan waa dhibaatooyin aan iyada markaa ku larbanayn dadku ay jirsiinayaan oo ay samaynayaan oo haddii la iska daayo ka hadhi karaysa labada qaybood ayaynu insha allahu tacaala u qaybin doonaa qaybta hore waxaa ka mid ah had iyo jeer waxay wadataa oo barnaamijkeeda ka mid ah wax loo yaqaano ololaha doorashooyinka inta badanna dhibaatooyinka u badani halkaas ayay soo hoosgelayaan alxamalaat alintikhaabiya ayaa loo yaqaanaa ama addicaayaat alintikhaabiya inta badan waa wax markaa ku lamaan oo siday uga fakataa ay adag tahay taasi markaa waxay wadataa dhibaatooyin iyaguna farci ah oo ka hoos baxaya hadday tahay mafaasid diiniya oo diinta qofka saamaynaysa iyo bulshadaba haddii ay tahay mafaasid khuluqiya ama akhlaaqdiiyo dhaqanka dilaya oo meelka dhac ku ah haddii waxaa ka mid ah mafaasid iqtisaadiya oo dhaqaalaha bulshada
iyo midda qofkaba iyaguna dhabarjab ku ah. waxaa ka mid ah mafaasid ijtimaaciya oo bulshada siyaabo markaa guud u saameynaya. intuba waxay ku hoos jiraan alxamalaat alintikhaabiya amaba ololaha doorashooyinka ayay ku hoos jiraan. kuwaa markaa waxaa ka mid ah oo ka sii dhalanaya qaar iyaguna ka sii hooseeya. mashaakilka runtii iyo dhibaatooyinka ay wadato waxaa ka mid ah ihaarat alcasabaat alqabaliya. had iyo jeer waxay kicisaa sooraha qabyaaladda iyo dadka had iyo jeer iyadoo degan marka ay bilaabanto ololayaashaas ay bilaabmaan waxaa cirka isku shareera qaybsanka iyo kala googo-a iyo cunsuriyadda iyo qabyaaladda. muddo yar marka ay bulshadu caga dhigataba waxaa lagu daarayaa oo ku bilaabmaya doorasho 3 sano ama wax ku dhow ayaynu ka joognaa doorashadii madaxtooyada November 13 2017 ayay ahayd. waynu garan karnaa raadadka ay markaa bulshada kaga tagtay taban salbiga ah. waxoogaa imika markii bulshadu ay cagaha dhulka soo yaro dhigtay laga yaro nastayna waxaa inoo bilaabatay tan iyada ah. markaa mashaakilka ay leedahay waxaa ka mid a inay kiciso had iyo jeer sooraha qabyaaladda. taana waxaa loo baahan yahay dee bulshadu inay ka wacyi gashanaato oo ay dhibaatooyinkii la soo maray ay dareento. qabaliyadda iyo cunsuriyadda iyo bulshada oo markaa la kala qaybqaybiyaa mashaakilka ay leedahay iyo waciidka ka soo aroorayna in maanka lagu hayo waxay ka mid tahay waxyaabaha lagaga badbaadi karo. dhibaatooyinka ay leedahay had iyo jeer ololaha doorashooyinka dhex socda waxaa ka mid ah alkadibu waاtadliis. in been la ysku akriyo waxyaaba aan xaqiiqo lahayn oo qofka markaa awooddiisaba ka baxsan uu ku ololeeyo. waxa kanaan qabanayaa shaariica noocaas ayaan fulinayaa ilaa aakhirihi. waxyaabaha taa markaa waxaan isku daynaa mid walba xalka insha allahu tacaala inaynu wax yaroo ka midoo kooban aynu raacino. waxyaabaha laga fakan karo laga badbaadi karo waxaa ka mid ah qofkani warka uu leeyahay ama mashruuca uu doonayo inuu ku kasbado dadka inay noqoto wax loo hayo oo lagula xisaabtamo oo berri ka maalin marka uu meesha gaadho la soo hordhigo dadka baashana xaggooda ay nooga timi iyagu inta badan uma samaysna bulshooyinkoodu qaabkan qabaliga ah ee ay bulshooyinkeennu u yaallaan. xamalaadka noocaas oo kale ama ololayaasha noocaas oo kale marka la samaynayo dadku u soo shiraan waxaan uu leeyahay qofka waa loo qoraa. qof waliba intuu qalin iyo waraaq soo qaato ayaa waxa uu ka hadlayo loo qoraa. hadhowna markuu meesha tago waxay noqdaan wax lagula xisaabtamo oo hortiisa yaal. hadduu qofku taas garanayo waxaa laga yaabaa wax badan oo uu marka hore ku darsan lahaa inuu markaa ka waantoobo. mashaakilka
ay leedahay ama mafaasida ay leedahay ololaha doorashooyinku ay leeyihiin waxaa isaguna ka mid ah asarafu fi infaaqi اlamwaal min gayri faa'ida in xoolaha ummadda ee lagu lumiyo waxaan waxba ka dar ahayn ama ha noqoto xoolaha ama maalka shaksiga ah ee uu qofku si gaara isagu u leeyahay ama ha noqoto maalka guud iyo hantida ummaddu ay leedahay in loo isticmaalo si aan caadi ahayn xoolaha loo isticmaalo oo loo burburiyo waxay had iyo jeer ka mid tahay mafaasida ay doorashooyinku leedahay oo dabeedna dhabarjab dhaqaale oo bulshada oo dhan ama dhinacyada nolosha ee kala duwan saameeya uu arrintaa ka dhasho waayo aragna ee waynu u nahay arrintaa waxyaabaha iyadana ee lagaga badbaadayo waxaa ka mid ah in qofku uu dareensanaado oo uu xasuusnaado waciidka iyo ku soo arooray in xoolaha lagu loofaro wakuluu washrabuu walaa tusrifuu innahu laa yuxibu lmusrifiin sa'ala li tabaaraka wa tacaala walaa tubadir tabdiira إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا النصوص تاس كتاب له السنة له ما دام أمالك كمد يهي لف دبرتا ومدى بل اسكداي مقاصد الشنطة أي دينتو إلى لسه وكمد يهي in loo lug yeesho meesha lagu bixinayo in la xasuusnaado waciidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ina rijaala yatakhawaduuna fii maali اllahi bigayri xaqin falahum الnaaru yowma alqiyaama xadiidkaas saxiixa ah ee uu bukhaari wariyey waxaa nebigu leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam rag yatakhawaduuna dhex dabaalanaya ama bimacnaa yatasarafuuna ku tasarufaya maalka ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala ama maalka ummaddu ay wada leedahay oo si xaq darra-ana ugu tasarufaya falahum الnaaru yowma alqiyaama maalinta yowmulqiyaame waxay leeyihiin naar ayay leeyihiin dhibaatooyinka iyo mafaasida had iyo jeer ku lamaan ee dhinac socda ololaha doorashooyinka waxaa iyaguna ka mid ah wax isdabamarinta iyo qofku had iyo jeer naftiisa inuu buunbuuniyo dadka kale ee laga yaabo inay wax iskaga soo horjeedaanna uu aad iyo aad u hagardaameeyo af iyo adinba dhibaatooyinka had iyo jeer ololuhu leeyihiin ayay ka mid tahay taasna waxyaabaha markaa ay tahay qofku inuu xusuusnaado waxaa ka mid ah in ilaahay tabaaraka wa tacaala qof walba wixii uu qoray uu gaari doono waxa ilaahay gacantiisa ku jirana tabaaraka wa tacaala aan lagu gaadhin macsi alleh ee ay tahay in lagu raadiyo daaco alleh iyo ilaahay oo loo hoggaansamo subxaanahu wa tacaala waxaa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam ina ruuxa alqudusi nafatha fii ruuci ana nafsan lan tamuuta xataa tastakmila ajalaha wa tastawciba risqaha malku jibriil wuxuu qalbigayga u waxyooday nafina inaanay dhimanaynin xataa tastakmila risqaha
inta ay dhammaystiranayso risqeeda xataa tastakmila ajalaha inta ay cimrigeeda laasanayso wa tastawciba risqaha wixii risq alla u qorayna ay helayso qaadanayso mar hadday sidaa tahay fattaquu llaha waajmiluu fi alab fattaquu llaha waajmiluu fi alab ilaahay ka cabsada tabaaraka wa tacaala qaabka aada waxu doonaysaanna hagaajista oo iska hagaajiya walaa yaxmilanna axadakum istibdaa'u risqi an yatlubahu bimacsiyati illaah qofna yay ku xambaarin waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala xaggiisa ka jira raagsiga uu raagsanayo inay arrintaas uu ku doono waxaan alle raalli ka ahayn fa ina allaha tacaala laa yunaalu maa cindahu ilaa biطaacati illaah waxa ilaahay agtiisa yaalla laguma gaadho daaco alle mooyaane wax kale laguma gaadho xadiidkaas waa xadiid saxiixa ah alfaad kala duwana ku soo arooray min xadiidi abi umaamata albaahili radi allahu canhu wa min xadiidi ibni mascuud wa min xadiidi jaabir alfaad isku dhowdhowna ku soo arooray waa xadiid saxiixa qof walibana inuu xadiidkaas hortiisa dhigo waa lagaba maarmaan inta uu nolosha adduunyo ku sugan yahay inuu xadiidkaas hortiisa yaallaa aad bay muhiim u tahay waxaa runtii ka mid ah mafaasidda ay had iyo jeer keento doorashooyinku mafsadatu shiraa'i اlaswaati waاdimam qofku mutarashixa ee sharaxan ama muntakhabka ee la rabo in la doorto markuu kalsooni ka waayo bulshada inuu iska dayo wax loo yaqaan shiraa'u laswaat codadka inuu iibsado waa masalo hadda aada iyo aada u jirta arrintaasi khatarteeda ayay leedahay qofka iibsanaya ee dadka codadkooda iibsanaya khatar weyn ayay ku tahay qofka iibinaya laftiisu ee codkiisa iibinaya isagana markaa khatar weyn oo diineed ayay ku tahay waxani waa ammaano codku waa ammaano saas awgeed meel aanay ammaanadu lahayn inaad dhigtaa waa dulmi dulmiga gebigiisaba waxaa la yidhaahdaa waa wadcu shayi fii gayri maxallihi waa shayga oo la dhigo meelaan ku habboonayn marka codkii ammaanadaada ahaa haddaad shilimaad dhaafsato waxaad dhigtay meel aanu lahayn ammaanadii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku saarayna waa dayacday إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إلهي تبارك وتعالى وحري أمانة وحن نقول بندقنا إني قادان سماواتك يا أرضوينك يا بورها وأديدن إني قادان وكعور دارتوي وأنا كعب صديق مسؤولية ده inay siday tahay uga soo bixi waayaan wa xamalaha alinsaan bini aadam baa qaaday marka arrintaas arrin khatara weeye mar labaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aanka wuxuu inaga nahiyey yaa ayuha aladiina aamanuu inta laynoogu dhawaaqay wasfu liimaan
dadka alle iyo rasuulkiisaba rumeeyayo iyo dhammaan waxay ahayd in la rumeeyo laa takhunu allaha wاrasuul وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الله خيامنا رسول كيسنا خيامنا ولا تخونوا وتخونوا أماناتكم أي ولا تخونوا أماناتكم أمانوينك الذين صارينا خيامنا وأنتم تعلمون إذنكم ولبا أرنتها قرنيا إذنكم أرنتها قرنيا waxaana ay tahay inuu u diyaar garoobo codka ammaanada ah qofka shilimaad dhaafsanaya ama qof aan istaahilin siinaya inuu daalim yahay waxaana ay tahay inuu u diyaar garoobo gacantaa aad ku dhiibtay ee aad ku bixisay amaba qof aan mudnayn aada ugu codaysay maalin maalmaha ka mida inaad dhexda ka qanini doonto ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ويكون دبق ميسا مسألة حتى أي محيل marka qofku inuu arinta dareenkeeda lahaado oo codkaagu maadaama ammaano alle ku dhiibay yahay halka aad ku aaminayso ee aad dhigayso aad u meel dayda waa laga maarmaan inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha مفاسد runtii ay leedahay doorashooyinku ay xambaarsan yihiin waxaa iyadoo ka mid ah zaczacatu lamni ammaanka bulshada inay khatar geliyaan marka yanaa si qaldan oo aan sax ahayn loo isticmaalayo meelaha markaa khalkhalka iyo dhibta ay ka keenayaan way badan tahay ee markaa amniga ay khatar kaga tahay waa badan tahay ha ahaato khilaafka marka hore ka dhalanaya ka qabaa'ilka guud dhex imanaya iyo ka yaana jiifada hoose reerka laftiisa dhex imanayaba ha noqoto waxaa suuragal ah mararka qaar kala jiidashada wax la kala jiidanaya inay keentaba ama ay gaadhaba heer gacan ka hadal ah siyaabaha ay amniga markaa khatar ugu tahay waxaa ka mid ah marka had iyo jeer la ololeynayo waynu naqaanaa aqalo iyo guryo ayaa la furtaa ka soo qaad gobolka togdheer oo keliya murashaxiinta ka sharaxan tira ahaan waa imisa u malaynaysaa waa dhowr iyo 80 musharax wey dhowr iyo 80 musharax weeye 15 baarlamaanka u sharaxan iyo 13 u sharaxan golaha deegaanka waxa weeyaan waa 28 ka xisbi walba 3 xisbi marka lagu dhufto 3 waa 84 isku celcelis marka la sameeyo guryaha imika furan ee laga ololeynayo qaar baad maqlaysaa 20 xarig baa 20 guri ayaanu xariga maanta ka sharray marka la isku celceliyo kiiba 10 laga soo qaado la yareeyo imse noqonaysaa 840 guri bay noqonaysaa oo laga ololeynayo
maxaa maal intee lag baa ku bixi karo lagu burburinayaa meeshaas qaarkood baa markaa la iska soo horjeediyey qaar markii horeba isla dhibanaa oo hadday doonaan markaa jinfo yaro hoose ka soo wada jeeday oo midba markaa axsaabta mid ka midi uu dabada ka riixayo ilaan waxa la isugu imanaya waa markaa waa idaarkan yar waa gelgelinta yar reerka waa intan xaafadda unbaa la isugu imanaya marka la iska soo horjeediyo yana wuxuunbaa markaa ka dhici doonta yani in boolis u dalbada waanay dhacdayba in markaa gacanta la isula tago oo dhibaato eerkaa ka timad waxa u badane meelaha dee joogaana waa dhalinyaro iyo dumar dhalinyaro iyo dumarna markay caatifadu kacdo yana awoodda isxakamaynteedu inta ay leeg tahay waynu garan karnaa markaa siyaabaha runtii ay amniga khatar ugu tahay sidaas taa iyo kuwo kale oo fara badan ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ay leedahay ololaha doorashooyinka ka yimaada waxaa ka mid ah fasaad اlakhlaaq wa shuruuc اlikhtilaaط in ummadda dhaqankeedi iyo akhlaaqdeedii ay burburto wax badan oo ka midi oo isku dhex darsanka ragga iyo dumarka hablaha iyo inamada iyo wax la mida ay faraha ka baxdo mawduucaas waxba hoos ugu daadegi mayno insha allahu tacaala dee waa mawduuc iska xasaasi ah kuna saabsan guryaha iyo waxaa la mid ah arrimahaana wacyigelin laga sameeyo mooyaane halkan oo kale in hoos loogu daadegaa wax quruxa ma keento laakiin waxaan idin sheegayaa cilmi baadhisyo daraasado la sameeyey qaabka iyo siyaabaha akhlaaqdu markaa ay u burburto xilliga ololaha doorashooyinka yaabbaad u soo baxaysaa yaabbaad u soo baxaysaa daraasaadkaasi waa mutawafir oo waa yaallaan inta markaa guri ee arrintaa ku burbura inta hablaheennii caarka ahaa faraxumayn ku dhacda inta dhallinyaradeennii balwad iyo qaad iyo wax la mid ah halkaa ka bilowda waa arrin markaa aada u khatar weeye taasna runtii in dee iyada markaa laga digtoonaado oo la ogaado inama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat ummaduhu waxa weeye waa akhlaaqda haddii akhlaaqdu ay baaba'do ummaddaasi waa baaba'aysaa taana runtii in laga fogaado oo la iska ilaaliyo oo akhlaaqda iyo aadaabta wanaagsan ilaalinteeda iyo waxa ku soo aroray aada iyo aada loo daraaseeyo ayaa iyadana lagaga badbaadi karaa wax badan oo runtii ka mida dhibaatooyinka ay leedahay doorashooyinku waxaan jecelahay inaynu ka toobiyeyno oo aynu kasoo intaa kusoo koobsanno maxaa yeelay waa dhibaato inoo wada muuqata qof walibana inta uu ka arkayo marka arrintaana inaynu aada runta udhigmo yeelino waliba taa ugu dambaysa iyo burburka qoysaska iyo kala jiidashada iyo markaa arrimaha ku saabsan waa arrin aynu wada dareennay inaynu insha allahu tacaala ka feejignaano oo dareenkeeda lahaano ayay markaa ku fiican tahay qabyaaladana waa ku jirta waynu ku bilownayba waxaynu kusoo gebagabayna insha allahu tacaala bahashaasi dhibaatada noocaasa aynu tirinay iyo qaar kaba badan oo aynaan tirinba leh waa wax maanta
qaabkay u taalo iyo qaabkaynu u samaysanahay marka la eego waa waxaan markaa laga fakan karin oo bahashan waxaa la sheegay oo habeen hore muxaadaradii doctor Faysal ku jirtay qaabkan hadda ay u taalo marka ay tahay kama mid aha duruqda ama hababka dadka muslimiinta ay wax u dooran jireen ee hore taariikhdeenii marka islaamiga kuma jirin dad baa bahashan keensaday aniga naylaha iiga du intaynu isku haysanay inagu iyo waxaraha idaha ka soo intaynu isku haysanay arlada rag baa ka shaqaystay qaabkanna iyagaa u soo dhigay gaal iyo muslim intaba inay ku sanduleeyaanna niman baa ku talagalay madaxda hadda ina haysatay iyo qolada ina xukuntana nimankaasaa markaa u keenay oo weliba ku dul jooga malaayin ama balaayin lacagana ku bixinaya markay sidaa tahay ee wax ikhtiyaarkeenna aynu inagu ku doorannay aynu u yeedhanay aanay ahayn waxaynu markaa ku baraarugnay uun iyadoo inala nool ay tahay waaqicay markaa dadkaana ka mid noqotay innagana aan nagu gaar ahayn duwalka muslimiinta hadday khaliijul carab tahay hadday masar tahay hadday suudaan tahay hadday markaa galbeedka iyo tunis iyo maqrib iyo mauritania iyo jazaa'ir iyo kuwa lamidka ay tahay hadday duwalka kale islaamka ah tahay ee aan carabtaba ahayn intaba waa wax ku socday oo laga dhaqangeliye wey markay sidaa tahay waxaynu u baahannahay sidii aynu dhibteedana uga badbaadi lahayn dhammaanteed ama u yarayn lahayd wixii markaa maslaxad la moodana ee ku jirana aynu u xaqiijin lahayn inaynu falogeed qabanno oo aynu isu kaashanno ayaa la rabaa maanta inooma joogo ahlu saqiifati bani saacida oo intay isugu tagaan saqiifatu bani saacida intay isugu tagaan abubakar inoo dooran maayaan oo saa madax inoogu noqon maayo ma haysano abubakar radi allahu tacaala canhu oo cumar inoo cayimaya oo madax iyo amiirulmuminiin inooga dhigaya ma hayno miyaynu haynaa dee ma hayno cumar radi allahu tacaala canhu oo asitatu lmubasharuuna lahu biljanna yana cumar cuhmaan iyo cali iyo cabdiraxmaan bnu cawf iyo طalxat bnu cubaydillaah iyo sacd bnu abi waqaas iyo zubayr bnu cawaam lixdaa iyo cabdillaahi bn cumar oo isna dusha ka ilaalinaya korjoogayaasha ka mid a intuu noogu dhiibo odhanaya idinku mid iska soo dhex saarana ma hayno caliyu bn abi aalib radi allahu tacaala canhu oo markaa ahlu xalli walcaqdi ay markaa gacanta u dhiibayaanna ma hayno intaa midna kama hayno inooma joogaan والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم كل الذي إنهم جوغان السابقون الأولون ممن صلى إلى القبلتين كواسنا إن المجوغان أهل بدر وإلهي لي تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كواس إن المجوغان أهل الوحد يا أهل بيعة الرضوان إن المجوغان
qaabkii في تاريخنا الإسلامي madaxnimadu loo dooran jiray madaxdu ay ku soo bixi jirtay ma hayno maanta taasa yana caalamul islaami oo aynu ka mid nahay ay ku sadulaysan yihiin waxaan markaa u baahanahay laysa al-aaqilu alladhi ya'rifu al-khayra min ash-sharr Umar radiyallahu anhu ninka ragga ahi maaha ka wanaaga iyo xumaanta kala yaqaan walakinahu alladhi ya'rifu khayra ash-sharrayn ninka ragga waxa weeye ka labada shar kala doorta ee ka dhibta yar leh doorta markay caynka tahay waxaynu u baahannahay barakallahu fiikum oo nadwada awalkeedii iyo aakhirkeediiba ay ku shubaysaa oo ay ku urursan tahay bahasha iyada ah ama doorashooyinka iyaga ah ee weliba runtii aan markaas si mutlaqa loo banaynine quyuudda iyo dawaabida lagu xidhay ee maanta meel aynu uga baxsanno aanay jirin sidii aynu dhibteedana uga badbaadi lahayn dheefteedana wixii dheef la moodana aynu u taxsiilin lahayn inaynu markaa la nimaadno bulsho ahaan shacab ahaan madax ahaan culimo ahaan waayeel ahaan aynu isu kaashanno ayaa la rabaa oo waxaa isweydiin leh dhibteedii la sheegay horta bashu dheef ma leedahay haa dheef way leedahay hadday noqoto taa markaa culimada ay ka soo warrameen ee quyuudda iyo dawaabidda ee loo xidhay waxaa runtii fiicnaan lahayd ama aan jeclaan lahaa si markaa ay u noqoto ay isu dhammaystirto dadkuna ay u fahmaan ama aynu u fahamno waxaa laga yaabaa maanta waxaa aad u badan howlimadii bahashii doorashooyinka loodhan jira ooday ka qaadeen in badan waa maqlayseen habeen hore intii uu doctor Faysal ka afeefanay arrintaa waa maqlayseen baasha runtii culimadu markay leeyihiin waa la baneeyey ama ay banayn ama wax ka mid ay banaynayaan waa intaa aynu soo sheegnay markii la waayey ee bulshooyinkii markaa muslimka ahaa ay ku khasbanaadeen waxay culimadii markaa dee ku khasbanaadeen in waa naasilo iyo dhacdo timiye inay markaa ka ijtihaadaan oo ay xukun ka soo saaraan xukunkeedina wuxuu noqday kii habeen hore nadwada lagu bilaabay la idiin sheegay oo waliba quyuud iyo dawaabid leh dawaabidda waxaa ka mid a kow inaan loo qaadan an laa yuctaqada ana alintikhaabaati badiilatun can الطرق الأصلية الشرعية في اختيار الولاة والحكام في تاريخنا الإسلامي إن الله قادنين haddii tan la helay in markaa hababkii kale islaamku wuxuu dooran jiray laga maarmay oo meesha ka baxay taa ayaan loo qaadan ma aha dawaabidda culimadu ay ku banaynayaan waa daabidka labaada waxaa ka mid a an takuuna maslaxatu اlintikhaabaati gaalibatan calaa mafaasidihaa dhibta ay keenayso doorashadan iyo dheefta ka imanaysa marka la isbarbar dhigo in dheefteedu badan tahay halkaa waxaa ka soo baxaysa baashu inay dheef leedahay
ويشيك دون إن شاء الله. صدح وضابطك صدحات أن تتعين وسيلة لتحقيق المصالح الشرعية، فإن وجد ما هو أفضل وأقرب منها إلى المصلحة الشرعية منها فلا يجوز العدول عما هو أفضل. وإن طريق كله وحلو ما كان لو صحه أما وحلو دور صده وإن لوايو هدي اللي هلا يبحث وحلو دور صده أو كفي عن oo kamida duruqdeena iyo awjuhdii marka aynu u doorin jirnay islaamku u doorin jiray hadii taa la helayo in marka lagu dhaqmaa ma banaana. hadaday daabidka afraad kala dooranayo iyo ka wax dooranaya labaduba waa inay u jeedaan oo ay ka tahay in ay xaqiijiyaan maslaxada sharciga ah qadra al-imkaan inta ay suuragal tahay. doorashooyinka aynu ka hadlayna ama culimada ay banaynayaan waa kuwa markaa quyuuda iyo dawaabida leh. hadday taa noqoto nooc masaalixa way keeni kartaa, nooc masaalixa way keeni kartaa. masaalixda ay keeni karta waxaa ka mid ah xukunkan islaamkaynu doonayno ee haddana aynu rabno siduu ku iman lahaa inaan boori loogu boolin mararka qaar bay u noqon kartaa dariiq horseedi kara. ka soo qaadimanka baarlamaan baa la dooranayaa, baarlamaankaa la dooranayaa wuxuu leeyahay sulta iyo awood fulineed oo uu waxna ku diidi karo waxna ku dooni karo. mabda' kasta oo markaa aan islaamka waafaqsanayn oo la soo hordhigo wuxuu leeyahay awood uu ku kansalo. maslaxo kasta oo islaamka wuxuu tari kartana wuxuu leeyahay awood uu ku soo bandhigo waliba ku sharciyo ku hirgeliyo. dastuurka waxaa inoogu qoran wax kasta oo shariicada islaamka ka hor imaanaya waa waxba kama jiraan. qodobkaasoo keliya haddii baarlamaanku aynu soo dooranayna uu xoogga saaro dhammaan waxaynu hadda tabaynaa way imaan karaan ama dariiq horseeda ayay noqon kartaa. baarlamaankii nooca ahaa ee awoodda noocaasa lahaa cidda soo dooranaysa waa ayo soo bulshada maaha, soo bulshada ma hadday awoodda noocaasa cidda keeni kartaa waa bulshada. dadkii u bislaa yana heerka inay gaadhsiiyaan ummadda cidda keeni kartaa inaga wey. marka waxay noqon kartaa wax lagu xaqiijin karo almuطaalabatu bitaxkiimi sharci illaahi caza wajal ayay noqon kartaa. waa markaa waa waxtaro maslaxad bay leedahay marka halka laga eego. saas awgeed xalay baa aada loogu nuuxnuusaday oo caawa ku noqon maaye innagaa laynaga rabaa bulshooy inaynu maslaxada xaqiijino. maslaxadaa saynu u xaqiijin lahayn innaga ayaa laynaga rabaa. masaalixda iyo waxtarka ay leedahay waxaa ka mid ah haddii saytii looga faa'iideeyo istiqraaru amni, amniga iyo suguddiisa way ka qayb qaadanaysaa. waxaad dareemaysay waa ogtiinoo doorashooyinka jir waqti bay leeyihin. in yar haddii waktiga loo xadiday la ydhaado dib baa looga dhigayaa hadda walow duruuf arrintaa markaa suuragal ka dhigi kartaa ha jirto, amaba la yidhaahdo
muddo kororsiyo wax la mid ah ayaa la samaynayaa haddii la yidhaahdo waa garanaysaa sa dalku ugu guulgilmaya waa garanaysaa innaga lafteena waa soo marnay waqtiyada ka mid ah oo labadii qof ay wada taaganiba waxay hadal hayaan ay tahay arrintaa kullu soo marnay tan iminka taagan Soomaaliya ka taagan iyo halka ay marayso iyo wixii muddada dhan la soo dhisayay markii doorasho waqtigeedii uu hakad galay sida in yar isugu bedeshay waa garan kartaan hadda ogaado oo baashu saytay haddii loo wado amniga iyo sugnaantiisa qayb bay ka tahay waa maslaxad ilaa mafaasida haddii la tiriyo wal masaalixda wax la kamid ah la xusaaso ma masaalixda ay keeni karta waxa kamid ah in ay horseed u noqoto sidii bulshada iyo dalka loo horumarin lahaa ninka murashaxay marka uu bulshada cod ka rabo ee uu rabo inuu mar labaad iyo mar saddexaadba soo noqdo wuxuu isku dayayaa ilaan doorasho la dooran doonaa kal dambe waxay u rahman tahay waxa uu maanta qabto Soomaa waxay keeni kartaa inuu mashaariic horumarineed ka fikiro oo bari lagu doorto horumar bay keeni kartaa waxay keeni kartaa in uu dareemo ninkan mas'uulka ahi in lala xisaabtamayo oo xisaabtan ka dambeeyo oo dhammaan waxyaabihii uu ku galay ololaha ay u qoran yihiin oo hadhow la hor keeni doono oo dabeedna ina uu ka fikiro si uu bulshada wax ugu qaban lahaa qadarka ayaynu insha Allah taala kusoo koobsanaynaa وهذا ما أقول وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا